ما يقولنا نفدري يا يدل ويودقوا آيا دورتي هاتبا حسن جامع waxaan dhashay sanadkii 1968 waxaan ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Balcalan leh tuuladaasi waxay ka tirsan tahay oo laga xukumaa gobolka Togdheer waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo Masiixi ah kitaabka Ilaah ayaa wuxuu ina leeyahay markaynu akhrino kitaabka Bible-ka gaar ahaan Injiilka kitaabka Yooxana cutubkiisa 3 aayadda 16 Ilaahay dunida jacayl intuu qabay waxa uu siiyay wiilkiisa kaliya oo mid kasta oo rumaysta aanu lumi doonin laakiin uu lahaan doono nolosha weligeed waarta runtii Sayid Ciise Masiix waxa weeye badbaadiyaha dunida wuxuu inoogu dhintay dambiyadeena aawadeed isku talaabta markuu isku talaabta ku dhintay 3 cisho kadib uu sara kacay wuxuu fadhiistay gacanta midiga Ilaah halkaas ayuu ku xukumi doonaa qurumaha Sayid Ciise Masiix sidaad ogtihiinba wuxuu xukumi doonaa dunida oo dhan isaga oo soo laaban doona mid kasta oo rumaysad ku leena wuxuu noqon doonaa mid uu qaato oo halka uu joogo la taga haddaba nimcada aynu ka helnay kitaabka iyo rumaysadka sayidku waxay inagu xoojinaysaa inaynu noqono kuwa isaga u eg oo rumaysad leh oo ku dhaqma sidii isagu u dhaqmay Sayid Ciise Masiix dunidan waxa uu keenay jacayl nabad waxa markaa la inooga baahan yahay in aynu eegno kitaabka Injiilka haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed waxa jirta fikrad odhanaysa kitaabka waa la bedbedelay waxba lagama bedelin kitaabku waa ereyga Ilaah maadaama uu yahay ereyga Ilaah waxa loo baahan yahay qof kasta in uu eego xitaa waxyaabahan aad ula yaabo waxa kamid ah ay dadka Soomaaliyeed sheegaan Masiixiyiinta ka sheegaan aan sal iyo raatoona war la aan ahayn waxa kamid ah waxay odhanayeen hebel uu shaambadaysan yahay anigu Masiixi baan ahay ma shaambadaysni marka fikrado fara badan kitaabka waa la bedelay bay yiraahdeen kitaabka anigu aan arkay kitaab bedelan ma aha waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa inay xaqiiqada eegaan oo ay had iyo jeer waxyaabaha propagandada ah ee ka geesta Masiixiyada iyagoo aan waxba ogeyn aanay ku degdegin horta waa inay ogaadaan Masiixiyadu waxay tahay Masiixiyadu waa jacayl Masiixiyadu waxay ku leedahay adawyadaada jeclow kii dhinaca ka dhirbaxa dhanka kale u dhig wax inta ka weyn anigu kumaan arag meel kale kitaabo badan baa jira oo kala diimo fara badan baa jira maan arag mid tiri aniga adawyadaada jeclow waxyaabaha aan ku ramaystay Masiixiyada waxa kamid ah inaan cadowgaaga jeclaato waxa ku jirta xitaa cadowgaaga wax wanaagsan u sameey caawi waxtar jacaylka inta leeg ma aha mid ka yimi shaqsi waa mid xagga Ilaahay ka yimi walaalayaal waxaan idinkaga tegayaa nimco haydin la jirto ilaa iyo dhamaadka dunida يريدو حقويه انتو ما يقولنا نفدري يا يدل ويودقوا آيا دورتي